بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu wadaynaa casharadeenii taxanaha inoo socday muddada dheer inoo socday ayaan doonaynaa inaan bilowno maanta casharkii afraad. waxa weeyaan casharka afraad waxaynu ku eegaynaa waxyaalo badan oo ku saabsan bal qaababka loo sameeyo ama loo xisaabaadka lagu shaqeeyo cookbook-ga. waxaynu ugu horeysiinaynaa maanta waxaynu ugu horeysiinaynaa halkaas aynu naqaano icon barka waad aragtaan waxaa ku jira iconna ku yaala home baa ugu horeeya, my company baa ku xigta. markaas waxaan doonaynaa bal icon barkaas sidaynu nadiif uga dhigi lahayn, aynu clean garayn lahayn, kabacdi markaynu clean garayno aynu usoo dhigi lahayn waxaynu inagu doonayno aynu usoo dhigi lahayn. markaas waxaad sameynaysaa halkaa cidladaa baad tegaysaa, dhinaca banaan baad tegaysaa, waxaad ku dhifanaysaa right click markaad siiso mousekaaga, markaad right click siiso waxaad ku dhifanaysaa customize icon bar. markaad ku dhifato waxaa kuusoo baxaysa daaqada ay ku taalo customize icon bar. markaas waxa weeyaan waxaa halkaa wada yaallo o dhan iska wada remove garaynaynaa. waxaynu u baahannahay ayaynu doonaynaa inaynu inagu soo dhigano. waayahay dhilid baad taabanaysaa, kaagu horeeya waan dhilid gareeyay, ka labaadna waan dhilid gareeyay, saasaan wadayaa click baan siinayaa, waan wada dhilid garaynayaa. waad aragtaan wuu soconayaa, xaggaas waa soconayaa. waa taas kii ugu dambeeyay home waan iska daysanaya, isaga waxba dhilid garayn maayo. homeka already waan u baahanahay marba inaan ku dhufto. markaas okay waan leeyahay. markaan halkaa clean gareeyo bal waxaan doonayaa inaan soo dhaweysto profit and loss-ka, khasaaraha iyo faa'iidada halka laga eegayo. markaan aan eegayo waxaan tegi jiray report, waxaan tegi jiray memories report, waxaan ku dhufan jiray accountant, waxaan ku dhufan jiray profit and loss. markaas waa dariiqo dheer oo la marayo. markaas waxaan doonayaa dariiqada dheer inaan ka maarmo oo aan meel dhow soo dhigto. waayahay profit and loss baan marka hore ku dhufanaya, meeshaan doonaya ayaa marka hore tegaysaa. intaanad xoog soo dhaweysan waxaad doonaysa ayaa tegaysaa daaqadiisa. markaan daaqadii tagaa daaqadii profit ay kaas tahay Somali Community Company-gaas, waxaan tegayaa halkay ku qoran tahay waxaan tegayaa halkay ku qortay view. markaan tago waxaan ku dhufanaya ku taalo add profit and loss to the icon bar. ma profit and loss-ka ayaa icon bar ku daraysaa? haa, waan ku dhufanayaa. markaan ku dhufto waxaa soo baxaysa daaqadii okay baan siinaya. waad aragtaan profit and loss waxay soo gashay halkii icon barka. home khali baa yaalay way ku xigtaa. waayo waxaan soo dhaweysanayaa balance sheet-ka company-ga. balance sheet-ka halkii baan tagay, isna laga eegi jiray. markaan balance sheet-ka qaybta laga eegi jiray isagana waxa weeyaan waxaan tegayaa view markaan tago isna add balance sheet ayaan ku dhufanayaa. okay baan leeyahay, isna wuu soo galay. waxaan soo doonayaa soo dhaweysto ka kale ku xiga doonayaan soo dhaweysto waxa weeyaan iyadana inaan soo dhaweysto general lecture-ka iyadana soo dhaweysan karaa. mid kastoo aad doonayso halkaas ayaad taabanaysaa dabeetana saasuu kugu soo gelayaa meesha aad doonayso. kaas waa qodobkaas. qodobka labaad ayaan doonayna maanta inaynu sharaxno waxa weeyaan sida loo sameeyo deposit ama transfer. deposit and transfer way kala duwan yihiin. transfer waxa weeyaan account baad lacag ka qaadaysaa, account kala geynaysaa. laakiin se deposit kaagu ka duwan yahay waxa weeyaan lacagtii kusoo gashay maanta ayaan baad account u deposit garaynaysaa, cookbook-kuna lagu hayaa. waayahay waxaan sameynaynaa bal marka hore waxaynu deposit garaynaa, aynu wax iibino. waayahay waxaan tegaynaa halka wax laga iibin jiray ama halka maska tegaynaa garigeed seeliska cadaanka laga iibin jiray. markaan tagno qof baynu wax ka iibinaynaa, waxaynu ka iibinaynaa Cabdirasaaq. markaas ayaynu wax ka iibinaynaa oo customer hore ahaa. waxaynu ka iibinaynaa laptop baynu ka iibinaynaa. markaynu laptop ka iibino waxa weeyaan hal xab baynu ka iibinaynaa, waana cash. waxaanu ka siinaynaa $500. waayahay bisha waa khaldan tahay, inaga sax bishan maanta aynu geeyo oo la marayo. maanta waxaa la marayaa bisha September 2018
afar ilaa adkeeda maanta la maraya waayahay halkaasna infoos markaad gashanaysaa doonayso 001 basabili waayahay ninkaas 500 baan kaash kaga qaaday waayahay okay waan save gareeyay markaan sidaa u save gareeyo waxa weeyaan wax kala ma sameyn iyo iib kala ma sameeynin waxaan sameeyay xisaabta waxay habeenkii subaxii ayaan doonayaa lacag deposit gareeyo xaqa tagaysan ka deposit gareeyo lacagta account-kii marka hore uu ku jira chart of account-nada kaaga mid yahay ku jira cash on hand dahabshiil salaama amal alla banka aad leedahay ku jira iminka waxaan sameynaynaa bal account maran baan ku deposit gareynaa hay halkii account laga sameyn jiray ku noqonaynaa new learner account baan sameynaynaa lacaga waxaan ka dhigaynaa dahabshiil bank dahabshiil okay وحورمي أولين ما أنت أصلا هرت نوبات كورن ساكا يسوي مثل نوبات كورن وحورمي أولين وسيرو مركز حين دورنا إنه dahabshiil banki aynu lacag geyno waayahay dahabshiil banki markaynu doonayno lacagta geyno waxaynu tegaynaa inaynu deposit gareyno waxaynu tegaynaa banka ku qoran tahay waxaynu ka dooranaynaa make deposit markaynu ka doorano markiiba waxaa soo booda 500 halkaa payment to deposit lacagta doonaya in la deposit gareeyo wuxuu soo gelinayaa halkaas wixii sales ah iyo wixii RP ah ilaa labadaas bay ka soo geli kartaa lacag buugood ogtihiin qof lacag lacagtii keenay ama qof cadaan wax ku iibsay markaas iminka maynu sameyn receipt payment maynu sameyn oo qof lacag kama qaban laakiinse qof buu xikeeyay 500 wataa 500 markay ka timaado 500 ma deposit gareynaysaa halkaas taxaysaa markaad saxdo okay wad oranaysaa waxaas soo gashay 500 account waxa ka dooranaysaa iminka waxa weeyaan dahabshiil iyo cash on hand labada combine noo dooran wax lacaga marka dahabshiil baan lacag dhigaynaa aynu u deposit gareynaa okay baan leenahay waynu safareen haddaynu ku noqon chart of account-gii dahabshiil 500 baa yaala 500 ayaa yaala haddaynu right click siino aynu lacagta eegno waxa weeyaan waa ta deposit weeyaan waa la soo deposit gareeyay aan deposit funky maqalkeeda maalinlaha ayaa laga soo qaaday waxaan la keenay dahabshiil haddaba waxa weeyaan iyadana aan eegno transferku waxa weeyaan laba account baa lacag kala qaadaysa transferkaas lacagtii kugu jirtay dahabshiil ee ahayd iminka $500 ayaa doonaysaa inaad 250 ka mid ah aad dhigato account-kaaga la cash on hand dabeetana waxaad sameynaysaa waxaad tigaysaa bank baad tigaysaa markaad bank tagto waxaad tigaysaa transfer fund markaad tagto halkaas kiid aad wax ka transfer gelinaysa waxaan ka transfer gelinaya wax dahabshiil halkaa totalka waxaad aragtaan in markii 500 baad tala dahabshiil yaad ku transfer gelinaysa cash on hand halkaas markaas wax weeyaan wasiir wax hore kuma ooli haye waxaan transfer gelinaya $250 markaan transfer garayo halkaas wixii noota aan iska qoran karaa markaas waxaan save and close iska saaro chart of account-ka ku noqdo waxa weeyaan cash on hand $250 baa yaala dahabshiilna $250 baa yaala taasna waa sida lacagta loo transfer gareeyo labada account ama loo deposit gareeyo ku eegaynaa bal waxaan eegaynaa dabcan maanta expenses loo record gareeyo sida expenses loo record gareeyo ayaan eegaynaa how to record expenses laba qaybood noqon kara expenses waxa weeyaan expenses aad doonayso inaan lagu yeelo wax yar oo shahiraad soo qaatay buugaag yar oo soo daawactay baalash xamaal wax yar oo aan doonayso inaan lagu yeelan ee markaa la bixiyo qasnada laga bixiyo iyo expenses aad doonayso in la record gareeyo hadaa doonto in ka bixin maysid laakiin qofku uu record gareynsa lahaa waxa laga yaabaa in lacagtii lagu leeyahay leerka 2 bilood iyo 3 bilood lagu yeesho doonaysa aad record gareyso waxa doonaysa kiradii kale in record gareyso qofkii markaas waxa weeye way kala duwan yihiin inagu waxaan doonaynaa inaan si yar fudud aan ku tuso oo aan kula gelin dariiqii dheeraaye baan ku debit iyo credit iyo la isticmaal jiray account-ka laakiin si qayb uu leeyahay book oo fudud aan ka tuso waxaad tegaysaa marka doonaysid inaad expenses record gareyso halka ma tegaysaa meel kale tegaysaa waxaad tegaysaa red check tegaysaa
red check baad u qoraysaa. Red check markaad tagto waxa weeyaan halkaa waxaad dooranaysaa akoonka lacag ka bixinaysa. akoonka lacag ka bixinaya waa dahabshiil igu celi. haye lacagtan bixinaya waa lacag yar oo waxa weeyaan aan siiyay masaakiin. halkaas akoonka lacagta aad maxaad ku qoraysaa lacagta expensiga ka midna waa soo maxay waa miscellaneous expense. miscellaneous expense kan ugu jirta miscellaneous expense ugu jirta waa office balay ka soo qaad. office balay baan doortay waxa weeyaan lacag aan joonay wax ku soo daabacday weeyaan. halkaas lacagtan keenay tirada waa $5. $5 markay tahay hay waxa weeyaan debit credit iyo xaas inta badan cookbook ma isticmaalo baytriga qasab ah laakiin se cookbook iska fudiiso waayahay markaan ka geliyo lacagtaas $5 waxaan ku soo iibsaday juwano aan wax ku qorto wax ku iibiyo waxaan doonayaa lacagtaas inay ka go'do dahabshiil ah oo halkaas ay balance ku haro inta soo hadha. markaas waxaan sameynayaa save baan oranayaa. haddaan save iraahdo aan tago profit and loss ka haddaan tago profit and loss waad aragtaan dulooba bal tag profit and loss ki $500 oo $500 markii aan iibiyey baalka ahayd cost of goods sold qiimaha igu joogtay waxa ahaa $5 ugu jirtaan $500 baan siiyey wata soo gashay expense wata soo gashay $5 expense aan bixiyey. marka xagaa ka saxo ku soo galaysaa dhinaca expense ku soo galaysaa akoonada ku soo galaysaa lacagtana saayar baa u bixisay. waxaan doonayaa hadaba bal inaan lacagta aan u record gareeyo qoladii lahayd lacagta. markaas taas waxay u baahan tahay funder halkan tagi maayo halkan waa lagu qori karaa laakiin se wax raaca ku dhintay helmaysid laakiin se waxa la tagay halkan marka la tago waxa la tagay interbill marka tagto halkan qofka lacagta kugu lahaa u qoraysaa qofka lacagta kugu lahaa shirkadda lacagta kugu lahaa idoo kale ayaad halkan ku qoranaysaa baan ku ori Somali electricity company gaaraha lacagta lagu leh aniga bishii weekend biilkiisii magaciisii baan geliyey. markaan magaciisii geliyey halkaas waa laba qaybood. markaan itemka qabsanayno qaybta bas active garanaysa aan funder ka qabsanaynay alaabta artiska laakiin si expense already u yahay qaybtaas is active garanaysa. halkaas aan ka dooranayaa akoonka utility ma ka dhigayaa waxa bay keeneen $100 bishan bay leeyihiin $100 baan record garanayaa $100 record gareeyo waxa weeyaan iyadana oo saf garanayaa kaasna waa expense laakiin se waa expense aan lacag bixin leeyahay. haddii aan tago funder list-ka waxa weeyaan Somali $100 ugu leeyahay. haddii aan tago xagga profit and loss-ki markaas xagga muhiimka waa xaggan uu soo galay $100 ka soo galay utility uu soo galay kaasina waxa weeyaan sidaas ayaynu u record garanaynaa yar fudud. qodobka labaad ee aan doonayaa inaan ku darayo waxa weeyaan qof customer ayaa lacag la siiyay. marka hore sida caadiyan ah waxa weeyaan qofka customer-ka ah inaga lacag inagu mu yeelin jirin waxa weeyaan customer markaas inaga lacag leh funderka lacag ugu yeesha. marka maanta waxa dhacay bal arrin cajiiba qof customer ayaa inaga lacag inagu yeeshay oo lacag inagu yeeshay. markaas qofka customer-ka lacag wuxuu inagu yeelan karaa in uu lacagteenu ka doonayna ka badan ina siiyo ayuu inagu yeelan karaa oo waxa weeyaan waxa laga doonaya $100 laga doonaya $150 bixi marka $50 ayuu noo haynayaa. marka bal waxaanu eegaynaa taas qaabka u dhacayo qaabka taas ay u dhacaysa waxa weeyaan customers-ka aynu tagno qof customer ah ayaa ka inagu jira imika waa Cabdirasaaq Cumar $35 ayaynu ku leenahay. markaan $35 ku leenahay lacagtii uu soo bixiyey wuxuu soo bixiyey halkii lacag bixishada tagaysa Cabdirasaaq Cumar waxa weeyaan wuxuu soo bixiyey $35 baa lagu lahaa waxa uu soo bixiyey $100 waa khalad baa dhacay. markaa $100 buu soo bixiyey markuu $100 soo bixiyey markiiba su'aal buu ku weydiinayaa payment credit ninkan lacag buu ku yeelan doonaa buu leeyahay. marka halkaas dad marista iska qaban kartaa haddaad okay tiraahidina ku dhowtuli waxaad arkaysaa in qofkan lacag cusub kugu leeyahay minus-ka aad arkaysaa waa minus waayahay. taasna waa qodob kale. qodobka ku xiga waxa weeyaan qof customer ah oo inaga customer ah ayaan lacag siin wuxuu yiri $100 cadaan ay siiya waa idin keenaya. markaas bal qaabkeebad idan u record garanaysa waayahay qofkii customer-ka ahaa aad marka hore waxaad tagaysaa
red check marka tagto xagga lacag ka siinaysa qofka customer-ka waxaan ka siinaya cash on hand ka siinaya 250 ka iyaalay ayuu yiri ayuu degdeg ah ayaa igu timi isiisi waan ku soo celinayaa markaas waxaan sameynayaa afwan halka ma tagaya red check markaan tago waxaan sameynayaa halka waxaan ka dooranayaa account receivable ila account receivable ninkan account receivable account payable account receivable ka iga yahay account receivable ka dooran markaan account receivable ka doorto halka waxaan siinayaa 2 qolka tumaasiin inay ninkaas oo lacag qolka tuga qoraya markaan ku qoro halka ninka magaciisa ka dooranay customer imika wax weyn man haysan customers far badan waxa baad ka soo qaataa imika ma sameeysanaya customer-ka muuse leeyahay inuu hore u jiro ka soo qaad markaa ka soo muuqan hadii hore u jiray ninkaas aan lacag siinayaa kareynaya haddaan customer center-ka tago center-ka dadka ay jidda lacagta loo leeyahay intii muuse kaas lacagta sal leeyahay laakiin lacagta faahfaahin la kala muuqanayso waxay ka muuqanaysaa adkayga arki karta lacagta faahfaahinteeda adigoo taga receipt payment-iga taga oo dabeetana halkii laga daabi jiray preview marka tiraahdo qofka dooranaysa mid kale oo dooran afwan ay ka noqono halkaas dooranaysa muuse marka ka doorato halkaas fee dooranaysa marka wata ku muuqda lacagta check oo ka soo daabi check wala soo qorin lacagtaas oo laga soo siiyay halkaas ay ka muuqanaysa aad ka arki karaysa qodobka inagu xiga taas waxa weeyaan سيبا فندر عقوصل يعني قف فندر العكس سينسا مثلا قف فندر العكس سينسا سكنا وحويان ألعاب بابا درست تشينا أما ألعاب بابا درست الدبي ألعاب هاد درستي وحويان العكتي أكون كاكو جرتبات شوبتي وحلا لح بدل كذا ماتيري وحد سمعنا ساعة تكنيكير أو فضول قف كالعكت ودرت ألعاب تكوسي يبنايا عادة الفندر كدقلتهم وحويان أتكوسي قرنا صار العكتي هو توم كألعاب ما دام خمسة ساعة وأتكشارسا وهي فندر مثلا فندر كيناس وحنا بحيننا وحدين دونو China وفندر بنو يهي فندر خاصة صار China إنه أيينو حندورنا إن العقد ورنا محل عقنو يلا أينو أكون ندي إني أكنو أكون كهذا بشيل أنا كان وأنا كاش on hand وأنا جيني كيف بس يني كاستمر كها كاش on hand كأن بشيل وحكو جرا لابا بقول يشن $40 waxaan doonaynaa 240 dollar ba inaan dirno oo alaab ku soo iibsano marka waxaan sameeynaa red check marka tago halka waxa ka dooranaysaa account payable marka hore kii hore waa account payable bal ka dooranaysaa 240 240 ku dhufato xaga sare account kii waa ugu jira waxa ku jirno sirogaha oo iska bedelayna account lacagta ka siinayna aynu dooranayna marka la haysto xayir markaas waxa weeye halkaas aynu ka dooranayna hadana ninka magaciisi waa China waa funder waa arta oo ku dhufanaysa waxa weeyaan hadaynu tagno funder liski ninkii dooran jiray China intaas inoo hayo waa mains kuwan kale funder kale iyaga lacagta ugu leh Somali taskan electronican iyo kan kale baa lacagta ugu laakiin si kaas oo mains inaga kule inagoo saa ugu leh 240 qas ay maanta daba alaabtu inoo nasa marka alaabtu inoo timaadana waxaan sameeynaa receipt items alaabtu qabsanayna marka qabsanana asagii waan ka dhigaynaa inuu alaabta inaga soo iibiyay markuu inaga soo iibiyo waxa weeyaan halka ma alaabtu ku qoranayna marka alaabtu qorano laabtoonada laftigoodiiba maalintii dambe la soo gaaray maanta hore ninkan bay lacagta inuu soo qornayde markay laabtoonadii soo gaareen ayaa soo gaaray 5 laabtoon oo inaga soo siiyay lacagtiina $245 marka waxaan sameeynaa safarna xiriirna ninkii hadii internetka waxa la arkaa lacagaha uu inagu leeyahay ama aan ku leeyahay ma jirto waa arkaas way iska qoysatay biil baan qabsanay lacagtan ku soo qornay iska qoysatay intaas aan ku soo gabagabeynaya wixii su'aalaha xagga hoose commentiga aad soo qori kartaan waan ka soo jawaabayaa dhammaan daawadayaasha barnaamijkan waxaan ka codsanayaa in ay subscribe gareeyaan channelka YouTube channelkan si markasta oo aan soo geliyo video ku saabsan xisaabaadka iyo arrimaha maaliyadda ay si fudud
ugu timaado oo ugu soo gasho iyaga oo macal qofka qabri nafsiska aan ogeyn usoo diro notification ama fariin usoo diro casharkaas daawo وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.